السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والكي فرحان إن شاء الله وحرنا نيشيغو لابو wax oo soo kordhay kow horta waxa ogtihiin labo isbuuc ka bacdi iskuulkii ayaa la furayaa public schoolka saa u taqaanin districtiga JCPS oo taqaanin districtiga JCPS hadda ka war haysaan superintendentiga macnaha gudoomiyahooda Mark Polio wuxuu sheegay in laba wax ay iska bedelayaan kow wuxuu yiri waxa isbedeli doona waqtiga iskuulka la bilaabi lahaa iyo basaskii route-koodii oo isbedelay waxaa la sheegay muddo ilaa 5 bilood ah school boardka ayaa waxay ku jireen in la sameeyo in waxa loo address gareeyay in waqtiga iyo school baska darawalada in la soo badiyo kow waxaa la isku raacay bil ka hor iskuulaha waqtiga in la bedeli doono sababta loo bedeli doono waxay tahay laba wax baa keentay in la badiyo attendance-ga yani imaashaha iyo in ardayda ay soo daahaysa la yareeyo basaska oo ku yaraaday dareewaladoodana dhibaatadaas ku jirta marka soo sheegay Mark Polio wuxuu yiri 3 milyan oo minutes 20,000 oo arday ayay miisgareeyeen sanadkii la soo dhaafay subaxii u horeysay iskuulka la imaado saa ogtiin public schoolka waxay leeyihiin waxa la yiraahdo instruction time macalinka wuxuu sheegay waxa la sameeyay maanta maxaa dhici doono badankood way soo daahan waxaa la sheegay elementary elementary waqtiga ay bilaawayeen inuu isbedelo elementary waqtiga isbedelaya middle school ka taa saddex waqti buu lahaan doonaa high school kana laba waqti buu lahaan doonaa marka waa idin kala sheegi doonaa dhageysta si fiican waa markii ugu horeysay la yiri JCPS districtiga oo arintan sameeyo waxa kale oo la ogaaday markii ugu horeysay noqotay dhaheen ee heleen ardayda JCPS waa 9,000 waaye waa markii ugu horeysay oo la helo dareewalada basaska in ku filan 600 oo dareewal ayaa la qoray waxaa la yiri haddii aad u baahantahay inaad ogaato baska qofka qaadayo waqtigu qaadayo waxaad tagaysaa linkigaas oo hoostan ku soo qoray JCPS Finder and then waxaad gelinaysaa addresskaaga information ku weydiinayo isaga ku sheegaya baska la raacayo waxay kale sheegeen in waraaq weegan la soo diray weegan in qof kasta boos loo soo dhigay baska transportation information kooda arintan wuxuu yiri Mark Polio gudoomiyaha waa national issue oo dhahay transportation schoolka waa national issue sheegay 9,000 arday ayaa maalin walba schoolka la isku dayaa ina on arday qaar ah waqtigooda way tagaan laakiin qaar koodna way ka daahan boqolkiiba 30 way ka daahan schoolka state ka saogtihiin state regulation ka waxa waaye cunuga in uu socon karo 0.26 hadduu cunuga iskuulku jiro 0.26 iyo mile ka yar lama siiyo school baska waxaa kaloo la sheegay in ardayda laga yareeyo basaska la isku dayo in ciriiriga laga yareeyo si ay basaska u qaadaan ardayda badankood waxaa kaloo ay sheegeen in ay ardayda dhan ay ka qayb gasho waqtiga la yiraahdo instruction time oo ardayda ugu horeysa arday badan ay imaan doonto waqti hore waqtiyadana waa soo sheegi doonaa isugu wax yar the highest number oo ka dhacda waay saani sheegay oo dareewalo 600 la qoray ah wuxuu kaloo yiri still wuxuu u baahan yahay 100 arday oo kale anoo 100 bas dareewal ayaa loo baahan yahay ayaa wali la qoraya state-ka wuxuu sheegayaa basas cusub hadda keensadeen basaska cusub waxay qaadaan 78 qof laakiin halkii bas waxaa loo ogolaaday 66 caruur inuu qaado ugu badnaan waxaa kaloo la sheegay JCPS transportation ugu weyn inuu labaad u noqday waxaa ka horay only UPS waa the second largest transportation company in the state of Kentucky waxaa kaloo la sheegay in la rabo caruurta aadaya compound ka taqaanaan aniga iskuul meesha ku soo dhigtay waxaa laga sometimes inaan raacday laba bas xaafadaada ka raaci compound-kana waa meel weyn oo basas saas isku daba maraan ciriiri badan marka imagine cunug 6 jiro 5 sano jiro oo la dhahay meeshaas tag
baskaaga raadso way arrin aad u adag waa waxaa kale oo jirto 80% of school jidadkii la mari jiray waa la bedelay boqolkiiba 80 waa la bedelay waxaana ka fiirisaa website-ka iyo boostadaada ka ogow haddii wax dhibaato ah ku qabtida dhexeyn soo waca nambarka la wacaayo waa kaas hoosta ku qoran waca hadda wax dhibaato ah ka qabtid baska caruurta u qaadaya inta saani sheegay 8 waqti oo kala duwan ayay elementary-ga bilaabay waa dugsiga hoose waa K ilaa 5th grade 8 waqti kala leeyihiin 8 qof kastana waqti uu leeyahay middle school-kana 3 waqti uu leeyahay high school-kana 2 waqti waa soo markaad saaragtaan elementary-ga 8 waqti waa 7:40 8 o'clock 8:10 8:40 sideedan waqti ayay elementary-ga bilaabi doonaan wayna kala duwan tahay soo cunugaaga midkiisa ogow hadda qaybtan arkaysid waa middle school-ka qaar waxay bilaabi doonaan 7:40 qaar waxay bilaabi doonaan 8:10 qaarna waxay bilaabi doonaan 8:40 soo qof walba mid different hadda qaybtan waxaan soo gaarnay high school-ka laba waqti oo la bilaabaya qaar waxay bilaabayaan 7:40 qaarna waxay bilaabayaan 8:40